hablo waa idin salaamay gabadhaas waxay tiri dhageeraha adduunka qaali oo ka yahay Soomaaliyana raqiis adduunka wuxuu qaali uga yahay faa'iidadiisa oo dhan bay og yihiin waxaan rabaa hadda inaan idinkugu celiyo mar labaad Soomaalidu waxay tiraahdaa lillaahi ilaqdo meel islama gasho walaaltinimada ay ugu ogtihiin aniga dhageerahan waa ku faa'iiday muddo ku siman 14 bari ayaan ku ogaaday tintaydu isbedelka ku dhacay marka waxaa laga yaabaa adigana inaa ila mid tahay oo dhibaato xoog leh ay ka soo gaartay isticmaalka biyaha wadankan aniga biyaha wadankan tinta everyga siiyeen Soomaaliya tintaydu waxay ahayd tin kala iska araga oo aad u dheer oo halweyn ah Kenya markaa imaadayna tintaydu dhulkay gashay way iga baaba'day way iga go'day laakiin wallahi dhageerahan maalinta isticmaalay naag Ethiopian ka arkay YouTube-ka waliba kadib markii aan samaystayna 14 bari gudahood waxaa ku arkay natiijo fara badan oo ay ka mid tahay tintaydi inay badato ku soo noqoto halweynimadeedii ayna ii dheeraato ayna ii soo baxdo qaabka wajigan hore xataa qaybta wajigan hore way iga sikitay marka dhageerahan xataa hadii aad cabtid subax kasta koob intaad karsato gabdhaha caadadu ku xiran tahay wallahi billahi iyadoo iswarsi lahayn idinka iimaanay video-ga la share gareeyo dad badan oo comment qaldan ka soo bixinay waa arkay laakiin waxa ogaataan inaa ku faa'iida maahan inina ku qasaareynin tintana lagama dhaqaayo mana uraayo saliidana ku dhex shuba caagada kadib ku isbareey garee adaa arki doontid 14 bari bas isii natiijada